فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فلما قضي وأي مادين مركا أي مادين أن ستو بيد هذا واربلا موسى دغيسنا waxa la akhrinaye markay dhageysteena adin moment ilaahay wuxuu leeyahay فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين markuu nabigu dhameeyay calayhi salaatu wasalaam warkii uu sheegay ee quraankii uu akhrinayay uu dhageysteen waxay ku laabteen tolkood iyagoo digaya oo maxay leh قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تلك يا وحنا مقلي كتاب سود كي نبي موسى قداشي كتاب كله كدم بيبان مقلي أو كي يريه وحي نبي موسى وودينا شيء حقنا ضدك كوهرونين هي جدك توصل إلى كيدا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به تلك يوم رمي يعني وحن لنا وحا أستانا هيد مجرد قفكو إنو أشهاته مجرد إنه التوحيد كقراءة إنه الدريمة هي مسؤولية دينه كسارن تدين تنو حنباره قرآن كو حين برا يا مسؤولية دني وقت انتهى لك بيسار ري حين برا يا أنبياء وقاب كيو حنبارين هنا يهيد إن الشقاء دنا يهيد شقاء انت ينولين ودد وظيفة العمر هنا يهيد ولذلك القرآن كو حكى ورمي يا نبي نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا نبي نوح عليه وحندتك الدين تووية ري tolkay habeen iyo maalinba waqtiga maxaa soo haray habeen iyo maalinba waan yeedhayay buu leeyahay wuxuu kaloo nabi isagoo habeen iyo maalinba yeedhay ayaa quraanku wuxuu tilmaamay in la beeniyay hadana falam yazidhum du'aa ila firara qofka bini aadamka ah waxyar dadku waxa la yidhi space ma jiro marka waxa la doonayaa xoogay horay in loo soo kala durko si walaalihiina banaanka taagtaagan ay boos yar baa u helaan masaajidka baa ciliidin waa marka idinka raaliya wax yar horay u soo sakada insha Allah qofka bini aadamkii hadii warkiisa la aqbalo nashiid buu noqdaa activity ka sii qaada marka dad u yeedhay wax sheegtay lagu aqbalo waxaad noqonaysaa qof nashiid ah laakiin hadii lagu dhagooleeyo cidiba ku aqbali weydo bini aadamka waxa lagu yaqaanaa inuu inta badan maxay inuu niyad jabo nabi nuux wuxuu leeyahay habeen iyo maalinba wax baan sheegayay haddana wax sheegayay wuxuu keensadoo in la iga sii cararo iyadoo sida looga sii cararayay ayaa quraanku wuxuu tilmaamayaa inuu isku dayay usluub kasta oo bini aadam uu adeegsado oo wax loo sheego thumma inni da'awtuhum jiharan thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israara ilaahay uu bulay kor iyo hoos iyo faqid iyo nooc walba oo bini aadam wax loogu sheego waan isku dayay buu leeyahay inaan wax ugu sheego muddadu intay leekay quraanku wuxuu tilmaamayaa 1000 sanatin ila 50 caama shaqadaasi ah inuu maalin iyo habeenba waday usluub kasta oo wax loo sheegay inuu wuxuu sheegayay muddada uu waday time period ku warkaasi waday waxa weeyaan maxay 950 sanadood uma sida waday buu leeyahay inagu imisa inuu muslim ahay imisaad sadad diin ugu yaadhay wali ma dareentay inaad muslim tahay inay xil ku saarayso inaad dadka diinta ugu yeedho se waxaad salaayda u fulan baa magaalada jooga iyo sheekh cilaan wadaada jooga ama kan baa jooga dadkan hore waxa simay aqoonin waxay yaqaaneen inay islaamaan walidaalka baa quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa anbiyadu dadka diinta waxay ugu yeedhayeen duruufta nololeed kasta ee lagu nooliyay quraanku wuxuu ka warramayaa nabi maxbuus ah oo xabsi ku jira oo haddana isagoo la dulmiyay oo madluuma oo maxbuusa oo aan wadankiisii joogin oo meel aan laga garanayn jooga haddana inaanu marnaba hilmaamin oo ilaabin mas'uuliyadda inay dadka ka saaran tahay inuu diinta gaarsiiyo ودخل معه سجن فتيان قرآن wuxuu tilmaamayaa nabiyullaahi yuusuf laba wiil baa xabsiga la galay qaala ahaduhuma inni arani a'siru khamra midkood labadii wiil wuxuu yiri waxa la iskay tusiyay riya yaani waxaan ku arkay isla anigi oo khamri asiraya ama khamri qooshaya ama majoojinaya ama wada ayaan arkay buu leeyahay kii labaadna wuxuu leeyahay iyadoo waxa la iskay tusiyay iyadoo aan madaxa ku sido khubz kimis rodi jabati waxa aniga madaxa ku sida oo shimbarakatul cunaya nabina bitawili inna naraka min almuhsinin sharxeeda nooga waran bay leeyihiin noo fasir waxaan ku arkaynaa dadka wanaagsan inaad ka mid tahay
laba shayba u fiirso waxay weydiisanayaan inuu wax u kordhiyo laakiin maxay u weydiisanayaan isagoo maxbuusa oo boqorku soo xidhay oo aan qabiilkan ka dhalan oo waxba la wadaagin oo wadankiisii joogin waxay u weydiisanayaan waxay leeyihiin qof muxsina baad waa qofka muslimka dhaqanka lagu yaqaan qofka muslimka ahi waa samajiri waa muxsin waa qof wanaagga ka shaqeeya xataa quraanku wuxuu inooga warramayaa nabi yuusuf boqorkii soo xidhaya gaalka ahaa markay u baahdeen aqoontiisii inuu ku caawiyey nabi yuusuf xabsiga ku jira waa kii boqorku riyooday riyadii wax fasiray la waayey markii loo yimi muu odhanin war naga taga idinkeena xidhay xabsi abaanu idinku jirnaa maxaa riyadiina daba dhigay kuma odhanin wuu fasiray wuu sheegay bal wuxuu u dajiyay uga warramay khito 15 sanadooda oo dhaqaalaha wadanka lagu badbaadinayo gaal iyo muslima dhaqaalaha wadankan way boqorkan xukumo qaabkii loo badbaadin lahaa uga warramay idan muxsin buu ahaa nabi yuusuf jaaniska markuu helay muxuu sameeyay قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله وحليه أولا وحو تركيزين يوصف عنه الربعين وقد عدعيه إنay meeshii ku habboonayd su-aasha in la weydiiyey inay yimaadeen wax raashinaydeen ma imanayaan buu yidhi ilaa iyo waan idin sheegayaa ta'wiilkiisa weliba wuxuu leeyahay dalikumaa mima callamanii rabbi arrinka kani wuxuu ka mid yahay waxyaabaha rabbiga i baray dabeetana intaanu fasirin ayuu wuxuu ka warramay muhiimadii uu u noolaa oo ah dadka inuu tawxiidka gaarsiiyo innii taraktu millata qawmin لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون وحب بلابا انتان وحبا فصيرين جانس كاير الله باهضي أيو ربا إنو دعوة دي سليبتو وحان كايمي بيولي دول أن إلهي يا آخرة ورى الرميسنين واتبعت ملة آباء إبراهيم وحانا راعي ملدي دينتي آباياشا يا نبي إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب يا هيستين وأنا إلهي سبحانه وتعالى وحنقوق الله دايستي وأهنا أن إلهي عدنا بوشرك يالين كدبوا يجا هذا السؤال ويديني وحلي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ورلا محبوس وبولي من ربي بدن إلا عابد أبا خير بدن مساء الله كليدا سبحانه وتعالى مركزوا هذا نوحي المام يوحي عابد الشريرين الباطل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم كذب wixii uu u noolaa oo ah inuu diinta dadka gaarsiiyay markuu shaqada gutay ayuu wuxuu uga jawaabay su'aashoodii ya saaxiibay sajn markaas uu sheegay in midkoodna ama axadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-aakharu fayuslab markaas uu ka jawaabay su'aashii maxaan uga dan leeyahay inaynu dareenno inagoo xor ah oo dhaqaalaha haysana oo walba haysana oo awoodna inaynu dadka diin u sheegno ayuunba afka layna xidhay oo inaan rumaysnayn inaad mas'uuliyadani ku saarantay aad rumaysantoon adigu wallahi haddaad 5 salaadoodba tukatay oo soontay muslim de ka koowaad baa tahay baad rumaysantay ma ahay nabi maxamed wuxuu leeyahay allahumma hal ballagtu dadku lahaa umad ku jirta ilaahu waan gaarsiiyay markhaati ka ahaw waxaad ku jirtaa dadka aakhira loo odhanayo maxaa dadka kale ku samayseen ma gaarsiiseen idinkuna إلا الرسالة إلهي سبب كسر درد ضد أردن لوجو تلاقلي أنت مدمدوية عرفت لوجو ما تلاقلين بشر أردن باللوجو تلاقلي أياد روميسان تيوسيد ده هدنا ما أودد إن ديليفر جريسيد إن ديبتيد ما أودد وحاول القرآن كوينا برا يا أنبياء وسيدة يودق بتشره مثلا إلهي وحكوا الرمي يا النبي نفط كسيب حيسه لكن شقدا إلا بين هدنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي مية شوكتين بالا لي سبحانه وتعالى مركي النبي يعقوب جيرد أيوتمي نبي يعقوب مركي جيرد أيوتمي ماذا فعل حسمي إلهي وحلي سبحانه وتعالى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي مركو كل هذا إلهي لي عرورتيسي ورانيك قضاء الشيء عابدي دونتان يعني وحو بنا إياه توحيدك سيدا لوغا قاطي iyo diinta waxay ka yeelayaan carruurtiisa ma hubinayo ma weydiinayo xoolaha saa oran doontaan iyo reeraha saa u dhiqi doontaan iyo maxaa qaban doontaan ee wuxuu weydiinaya maxaa tawxiidka ka samayn doontaan markaas waxay leeyihiin waxaanu caabudi doonaa ilaaha kalida subhanahu wa ta'ala cidna kula maanayn meel waxaynu ognay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inta dacwo sheegay haddana markay naftu ka sii baxaysay weerihii ugu dambeeyay oo lahaa waxa kamid ah allah الصلاة وما ملكت أيمانكم
nabigu calayhi salaatu wasalaam diin iyo dacwo ka dardaarmayay isagoo ay naftu kasii baxayso. waxaa laga yaabaa dadka badh inay isleeyihiin oo adigu ma cilmi badan baad le oo yaa cilmi kale ku weydiiyey tawxiidka soo ma taqaanid waxa lagu islaamo kalimatu tawxiid iyo salaad iyo arkaanulislaam iyo arkaanuliimaan. qofka waxaa loo sheegayaa waa kaasi, falsafad iyo cilmi kale looma akhrinayo. waxaa loo akrinaya waa inuu islaamo. waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaa afkaanan garanaynin. qur-aanku wuxuu inooga waramayaa midaan dadka afgaranayn oo dadka islaamiyey sabab ugu ahaa inay islaamaan. qof muslim oo shimbir ka itaaliyar ma jira. qur-aanku wuxuu ka waramayaa shimbir sababtay in ummad dhame ay islaamto maca boqoradoodii. ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga waramayaa shimbir hudhud la yidhaahdo. culamada soomaaliyeed waxay odhan jireen waa guuguule. shimbirka hudhudka la yidhaha ama guuguulaha, nebi sulaymaan ciidan badan buu watay, afaf badanna wuu yaqaanay. maalin maalmaha ka mid uu ciidankiisii xaadiriyey buu wuxuu waayey guuguule ka mid ahaa ciidankiisii. dabeetana wuxuu yihi guuguulahaasi ama cudurdaar buu la iman, haddii kale in la cadaabo iyo in la gowraco midun bay noqon, waa la ciqaabayaa. guuguulihii wuu soo noqdaa wuxuu yidhi axadtu bima lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin. nebi sulaymaan oo axadtu bima lam tuxit bihi, war aanad koobin baan soo koobay buu le aqoon baan hayaa. war waxaan ka imi buu yidhi saba meesha la yidhaahdo waa yaman, waxaanan ka keenay buu leeyahay naba yaqiin ah, war dhab ah baan kala imi saba. waa maxay warku wada? innii wajadtu imra'atan tamlikuhum, waxaan soo helay buu